waxaynu isla eegi doonaa caawa haddii aan la idmo alaabtan baan sharaxi doonaa faahfaahin kooban baan ka bixin doonaa insha allah waxqabadkooda iyo waxtarkoodaba insha allah. horta marka koobaad meeshan waxaa ku jira ama ku sawiran waa 2 gram iyo saliidii. labada gram mid waa jelly gram, midna waa aloe propolis gram, midna waa alpha e factorkii saliidii loo odhan jiray alpha e factor. haddaba marka saddexdoodan la isku geeyo marka mid loo kala qaado mid walba shaqo qabtaa. oo jelly creamku waa nafaqeynta guud ee maqaarka, sidoo kale waa xalinta sida nabraha iyo finanka. aloe propolis creamkuna waa creamkii loogu talagalay isagana in lagu xaliyo gadgaduudka ama cascasaanka ama mililka amaba caruurta yaryar finanka cascasay ka soo baxa ayuu xaliyaa. waana dhaashi guud oo caruurta yar waa loogu dhaashay karaa. okay, saliidan alpha e factor iyadana waa saliid loogu talagalay jilcinta dubka ama jidhka oogadeena oo sare oo dhan. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed aad iyo aad baan idin salaamaynaa. ku soo dhawaada company-geena Forever Leaf Product iyo gacmo furan. mar walba waxaynu jecel nahay si aad wada ogsoontihiin oo ka dheregsantiin inaynu ka shaqeyno bulshadeena haddii caafimaad noqoto iyo haddii dhaqaale noqoto intiiba inaynu run ahaantii aynu bulshadeena aynu ka dhisno oo dawooyinka chemicalka ay bilaatayada ana aynu dadkeenu ay kaga raysan lahaayeen. qaybtan aynu inii soo duubaynaa waa qaybta loo isticmaalo gastriga amba waxaan loo yaqaano gastritis-ka. gastrigu run ahaantii waxa weeyaan amba bacteria ha keento amba acid caloosha kacday oo qofka ku keentay waa dhibaato ku timaada caloosha. kadib haddii wax laga qaban waayana ay keento inay hadhow qofkii nabaro iyo miisaankiisa soo dhacay iyo hunqaaco badan iyo waxyaabo badan ay ku keento. waana run ahaantii dhibaato aad u taagan. sidaan ka wada dheregsannahayna bulshadeenu waxyaabaad ka isticmaalaan chemicalka maalin walba way cunaan laakiin halkan waa waxyaabaadka ugu muhiimsan aynu kaga saari doono insha Allah qofka gastrida. halkan waxa weeyaan waa dacarta iyo sharaaba sida ay neega muuqata oo clean garaynaysa calooshii iyo intaas oo dhan iyo dheefshiidkaba aad iyo aad ay sii dhayo waxyaabaadkaas oo dhan qofka dejinaysa. marka labada caagadood iyo run ahaantii tan oo ah Feel of Green waa kiniin yar oo Feel of Green la yiraahdo oo aad iyo aad ugu wanaagsan intan dheefshiidka oo fiber badankiisu u badan clean garaynaya calooshii iyo inta dheefshiidkaba ay sii hoos u dhigayaan. caloosha ayar bay socodsiinaya hadduu qofku babaasiir leeyahay sidoo kale way wanaagsan yihiin. haddii calool istaag uu leeyahay way wanaagsan yihiin. sidoo kalena haddii uu leeyahay qofku ciladahan caloosha amba parasite ku keeno amba bacteria keento sida gaardalaambiyada waxyaabaadka amba cayayaanka caloosha ku dhashay intaba aad bay ugu fiican yihiin. inta dheefshiidka ayaa aad iyo aad ugu wanaagsan yihiin. intaas oo dhanba qofka dheefshiidkiisa si fiican ayaa u clean garaynayaan. tan habeenkii aroortii horta alaabta waxa uu qaadanaya qofku intaan waxba cunin habeenkii aroortii. tan waxa weeyaan waa 60 ml ayuu qaadanayaa aroortii iyo habeenkiiba. salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed aad iyo aad baan idin salaamaynaa. ku soo dhawaada company-geena Forever Leaf Product iyo alaabaadkeena qaybo kamid ah. maanta xakan waxaan aad iyo aad iniigu hambaliyada inii sidnaa waxa weeye dhammaan bulshooyinteeni aynu ogsooneyn inay lafa xanuun ka cawdaan muruqyada muruqya xanuunka waxyaabaadka inay maanta ay sidaa ay kaga takhalusi doonaan message-ka quruxda badan la hortay nii wadnaa. marka maanta waxa halkaan iniigu sharxi doonaa alaabaadkeena qaybta curuqaha haddii lafa xanuun noqoto haddii jilba xanuun noqoto haddii rumadiisa noqoto haddii muruqyo xanuun iyo muruqyada qofka xanuunaya ay noqdaan alaabaadkeena aynu loo isticmaalo oo aad iyo aad bulshadeena run ahaantii aad iyo aad ugu fiican. tan waxay ka kooban yihiin alaabtani 3 qaybood. 3daa qaybood oo kala ah waa calciumti oo kiniina oo la liqayo oo calciumtana sidaynu ogsoonahay qofka mar walba jirkiisa way ka baxdaa. inaguna dad mar walba caanaha iyo hilib iyo waxyaabaadka isticmaalayna ma nihin. tanna waa calciumti oo dareera waa calcium oo dareera oo waxa la yiraahdaa Forever Freedom oo waa iyadoo dareera oo la cabayo. kana waxa la yiraahdaa Forever Active oo waa kiniin yar oo u wanaagsan inuu duxeeyo. sidoo kalena biyaha ku jira iskooysyadu leeyihiin si ayna lafu isku cunin. iskooysyadaas ayuu aad iyo aad ugu wanaagsan yahay oo uu siyaadiyaa. intan qofku wuxuu u isticmaalayaa tan habeenkii aroortii 2 mar buu isticmaalayaa.
tan 60 ml buu habeenkii aroortii isticmaalaya kiniinkanna habeenkii aroortii xabad buu qaadanaya intaas run ahaantii kaga filan sidaad ogsiyoontihiina alaabaadkeenu inaka calaamada ma baabina haduu maanta wax qofku xanuunsanayo intay ka baabiso hadana kuma soo noqonayso laakiin lafta xanuunku jirka kaga jiro ayaynu ka saarayna lafta xanuunku jirka ku jiro waxaan uga jeedaa qofka lagu xanuunayaan de waxa uu keentay ugu weyn waxa weeyaan waa calciumtiisa amba infection ha noqdaan rheumatism iyo waxyaabaadka qofkii ku dhacay amba calciumtii ha yaraatay dhibaatada ugu weyn waa calciumtii baan jirkeenu ku celinayna kadib markaynu ku celino qofkii saasay dhibaatada kaga baxaysaa aad baan soo dhaweynaynaa ku soo dhawaada kambanigeenna Forever Living Products. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.